people were one tent. Some of these tents can take 30 people. General, I guess they're not so heavy. But we believe that this is a symbolic gift from our partners, the Chinese, which will go a long way in alleviating the conditions of work, the conditions of operations of our Somali soldiers. So I want to take advantage of this to congratulate the Chief of Defense Forces of Somalia for this gift and to express our thanks to the generosity of our partners, the Chinese. Most welcome here, General Hale. Part of it was for Amisom. Yes. But since we were one trooper to you, and what we have here for you will be there with us for the celebration. qalabkaas qayb muhiima ayuu maaragtay ka anfici doonaa xoogga dalka Soomaaliyeed waana qalab aan aad iyo aad ugu baahnayn waana bilow fiican saas darteed waxaan uga mahad celinaynaa ururka midowga Afrika oo uu wakiil ka yahay safiirka Soomaaliya u jooga ambassador Madeira oo noo soo gudbiyey hadiyadan qiimaha badan leh ee dowladda China oo aan saaxiibka nahay ay ugu tala gashay ama ugu deeqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. What is the program?